بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaan qaadanaynaa darsi ku saabsan duruusteena horena xiriir lale oo ah sida isugu xiran yihiin arkaanta islaamka iyo mabaadi'da akhlaaqda ummadda looga baahan yahay arkaantaas islaamka ogolaatay. waxaan darsi hore kusoo qaadanay soonka iyo salaada oo ka mid ah shacaa'irta tacabudiga ah yani calaamadaha muuqda ee qofkan inuu yani islaamnimada uu soo galay muujinaysa qayb ka ah sida ay akhlaaqda ugu xiran yihiin oo salaaduna ay qofkii xumaatada uga celinayso, zakaduna yani iyaduna ay tahay tahiir iyo taskiyo qofka ay xumaatadii ka dahirayso oo qof mustaqiima ay ka dhigayso. sidaasi la mid ah arkaanta kalena sidaa unbay iyaguna isugu xiran yihiin oo ay qofka u toosinayaan oo akhlaaqdiisa ay u hagaajinayaan. tusaale haddaynu soo qaadano xajka, qur-aanku wuxuu tilmaamayaa xajka markii yani bilihiisa la joogo oo la xajinayo waxyaabaha xajka looga baahan yahay waxaa ka mid ah qofku inuu iska ilaaliyo dembiyada, oo maadaama ilaahay dartii u xajinayo meelaha la tegayo meelo aad iyo aad yani muslimiintu ay u jecel yihiin oo xaramkii yani mako iyo xaramkii madiino iyo amaakinta yani barakaysan ay dadka muslimiinta yani ay ku gutaan acmaashooda xajka uu joogo, oo qofku runtii uu ka baxayo xaaladihii yani uu wadankiisii markuu joogay iyo mashquulkii adduunyada iyo waxyaabihii intuu ka baxo uu gelayo yani jawi ruuxaani ah oo qofka yani isagoo dhan yani meel kale iyo si kale uu noqonayo. xajkaas howlaha loo qabanayo waxa ay tahay inuu qofku uu noqdo qof noloshiisa oo dhani ay sidaas xajka ay markuu jooga caadifadiisa iyo dareenkiisa iyo qalbigiisa iyo ruuxdiisa ay u dhisan tahay oo kale, inuu marka uu ka soo tagana wixii uu ka bartay xajka inuu noloshiisa kalena uu ku qaabeeyo oo yani akhlaaq wanaagsan inuu la imaado. saas ilahi wuxuu ley alxaju ashhuru macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj wama tafcaluu min khayrin yaclamhu allah watazawaduu faina khayra zaadi taqwa wattaquunii ya uli lalbaab. yani xajku waa bilo la yaqaano oo bilaha xajka la yihahdo oo markii soonka u dhammaado yani soon furta iyo inta ka dambaysa yani waa bilihii xajka loogu diyaar garoobayey. bisha carafo yani qaybaheeda horena acmaasha ugu muhiimsaneed ee xajka oo lagu qabanayey, bisha ka dambaysa muxaram dib loogu soo noqonayey meelihii marka hore xajka laga aaday. marka maadaama xajka uu sidaas yahay qofkii xajka yani gudanaya oo inuu guto isku faral yeelo oo dabcan intuu ku waajibay sanadkii uu gudan lahaa intuu ka dhigay sanadkan waan xajinaya yirahdo oo xajiya, waxaa laga rabaa xajkaas intuu joogo inuusan la imaanin wax xun. yani maalan hadduu xarmado, hadday islaantiisa la socoto oo kale yani intuu xarman yahay lama ogolo inuu u tago, falaa rafath, waxaan la ogolan walaa fusuuq walaa jidaala fi lxaj, yani daacada ilahay in laga baxo, in xajka lagu murmo ama lagu doodo yani lama ogolo. marka xajkii muxuu keenay waa shaciira min shacair islaam, waa muuqaalada islaamka ka mid ah. haddana dhanka kale wuxuu dadka barayaa yani tarbiye ah sida hadda aad xajka ku tahay hadhowna banaanka iyo meelihi aad ka timi markaad tagto ku noqo. marka islaamkeenu fiirisa qiimo badnidiisa iyo nabiga sal ly slam suu dadka u tarbiyeynayay. dadku markay xaaladooda saas ay tahay oo ay qalbigooda saas uu daahir u noqdo oo yani taskiye ay fiican ay helaanoo ayagoo dhan ay ilaahay isu dhiibaan oo mar ay yani ducaysanayaan iyo mar ay adkaar akhrisanayaan iyo yani mar ay meel booqanayaan, xaaladooda ay sidaas ay tahay, qofka halkaas markuu maraayo oo shucuurkiisa intii la dallacay halkaas fog la gaarsiiyey oo qofka yani uu u maleeya xaaladaas markuu ku sugan yahay inuu caalam kaleba ku nool yahay adduunyadiiba aan ahayn. iyo nabi wuxuu ku yidhi xajatulwadaac markuu dadka u khudbaynaya ayagoo xajkii jooga wuxuu ku yidhi ayuha nnaas dadow ina dimaa'akum wa amwaalakum calaykum xaraam, yani maalkiina iyo cirdigiina iyo sharaftiina xaraan ayay idinka tahay. yani qofkii qof inaan laisdilin, inaan xoolaha la kala qaadanin, oon laisdhicin, inaan yani aan la iscaayin oo cirdiga iyo sharafta dadka aan wax laga sheegin. yani xajku waa sidaas. marka maalinta ay joogaan u xusuusiyey, goobta ay joogaan u xusuusiyey, yani muqadime ayuu ugu sameeyey. waa bisheen ku jirnaa, waa bishii xurmada lahayd, beledkeen joognaa, waxaan joognaa makal mukaramaan joognaa, xaramkii ayaan joognaa, yani maalinteen taagannahay, yowmu naxri ayaynu joognaa, intaas aynu joogna ee sidaas ah. dhiiggiina iyo maalkiina iyo sharaftiinu xaaraan ayay idinka yihiin ilaa aad ilaahay kala kulantaan, ilaa an talqow rabbakum, ilaa qiyaame laga gaaro. dadka hadda joogay oo khudbadan dhegeysanaya ha gaarsiin ayuu nabi sal ly slam. kuwa maqan waxaa laga yaabaa kuwaas la gaarsiiyey
inay ka weelayn badnaadaan kuwo gaarsiiyey marka xajkiina muxuu noqday waa ruknun min arkaan alislaam mabaadi'da islaamka arkaanta islaamka ayuu ka mid yahay xagga kalena yani wuxuu dadka barayaa oo lagu tarbiyaynayaa yani akhlaaq wanaagsan oo sida markaad xajka joogto yani aadan xumaan u samaynaynin oo aad isaga ilaalinaysaa xumaatada ayaa markaad banaanka soo aadana xumaan waa un xumaan xaaraan waa un xaaraan yani saad isaga ilaalisay halkan kalena isaga ilaali marka xikmadda laga leeyahay waa midaas midda kale xajka kharash ayaa ku baxa oo qofkii ilaahay uu awood siiyo maaliyadeed ayaa xajka aada walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istidaaca ilayhi sabiila xajkaas xikmadda looga jeedo ayaa waxay tahay qofku inuu ku noqdo qof ilaahay ka cabsanaya oo maalan xoolaa la qalaya xajka maalan xoolahaas la qalaayo dhiigga ka daadanaya iyo hilibka la qaybinayo ee masaakiinta loo qaybinayo waxa loo socdaayay hilibka iyo dhiiggaas daatay ma ah ee waxa loo socday waxay tahay yani qofkani laba ayaa isu qabatay maalkan oo uu jecel yahay oo inuu dhaafo uusan rabin iyo arkaantii ogolaada islaamnimada ahayd oo ah inuu xoolo qalo oo xajkii uu tagana laga rabo marka labadaas jacaylka ilaahay iyo dartii wax loo bixiyo iyo jacaylka naftu ay rabta ee xoolihii amay ku dhaafan aad ka cabsanaysa labadaas jacayl markay isqabteen qofka mu'minka wuxuu fadilay oo hormariyey jacaylka ilaahay waladiina aamanuu ashaddu xuban lilah taasaa marka iyo xoolo u qalay saasaa waxaa loo yidhi lan yanaala allaha luxuumuhaa walaa dimaa'uhaa walaakin yanaaluhu taqwa minkum yani ilahay waxa gaaraya dhiiggan iyo hilibkan iyo ma ah waxa gaaraya ee waxa gaaraya waa qalbigan uu ka soo go-ay ee yidhi jacaylkii aan xoolahan u qabay haddii la barbar dhiga jacaylka aan ilaahay diintiisa u qabo jacaylka aan ilaahay u qabo jacaylkaas ayaa ka horeeya marka xoolihii intuu kor uga soo kacay ilaahay doortay kaas waa marka laga abaalmarinay marka muxuu xaqiijiyey xajkii wuxuu xaqiijiyey yani qofkii inuu noqdo qof wanaagsan oo multazim ah oo akhlaaqdiisu ay fiican tahay laakiin hadduu xajinaayo markuu xajka ka soo laabtana ou dadkii dhibaayo yani isma keenayso taas iyada mabaadida akhlaaqda ee xajka loogu talagalay qofka asaga ma uuna samaynin waxaa loo baahan yahay inuu marka isu qabato oo uu noqdo qofkii xajinayey iyo habnololeedkiisii way isleeyihiin oo ilaahayga daraaddii aad u xajiday ee xoolahaaga aad ugu xajisay oo xoolihii aad u kharash garaysay markaad xajka ka soo noqotona akhlaaqdii uu ilaahay ku amray ee ahayd in akhlaaq fiican lala yimaado iyo habdhaqan wanaagsan iyo edeb in la lahaado qofkii inuu lahaado ayaa laga maarmaana marka diinteenu waa diintaas saa isugu wada dhamaystiranoo yani arrinta aad u malaysa inay si un ay tahay oo maalan in lasoo xajiyo meel la taga laga soo noqday keliya ma ahe waxa loo socdo waxay tahay arrintaasna in sideeda loo fuliyo oo ilahay baa inagu adoonsaday oo sameeya ina yidhi arrintaas ayada markaan ka soo laabanana tarbiyo iyo wanaag intaan la soo noqono in aan marka dadkii aan la dhaqmaynay aan si fiican ula dhaqanno taasaa waxaa laga garanayaa xajkii inuu ansaxsan yahay marka xajka lagu baarinimo falayna nabig wuxuu yidhi sal allahu alيh wasalam laysa lahu jaza ila aljanna janno unbaa abaalkiisu uu yahay waa markii la ilaaliyey alla ka cabsigii iyo wixii loogu talagalay intaasoo dhan waxaa loo socdaa un in lasoo saaro qof wanaagsan oo akhlaaqdiisu ay fiican tahay oo dadka kale markuu la dhaqmaayo ama ay arkaan ay dhahayn allelaha qofkani diinta uu haysto iyo habku u tarbiyey waa hab wanaagsan saasna ay noqoto inay sabab ugu noqdaan dad inay diinta ay ku soo galaan darsigeenu maanta intaasuu ku egyahay wasal allahuma calaa sayidina maxamedin wcala alihi wasaxbi ajmaciin wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh